doorashada dhacaysa 2019 bisha January doorashadaasoo ay ku tartamayaan niman siyaasiyiin aqoon-yahano ganacsato reer profession kala duwan leh oo runtii haldoorkii reer daladu ka mid ah garowe waxaan rajaynayaa ma ilaahay iidankii waa dhacaysa hadda intii yarayda aan joogay baa waxaan maqlayay dagaal baa la ridayaa iyo waxbaa la samaynayaa iyo si doorashada dib ugu dhacdo iyo ku dhaqanka dastuurka daladu waxaa ka haray oo keliya in doorashada 8 January ay dhacdo wixii kale oo dhan waa lagu tuntay markaan run isu sheegno iyadii marka in lagu tunto wax la yeeli kara maaha in laga yeelaayana ma 8 January doorasho dhacaysa ama dagaal hal rido ama nabad ha ku dhacdo 8 January doorasho dhacaysa hadday yacni wixii ka yimaada cidda mas'uulka ka ah ee qaadaysa waxaan kaloo halkan ka cadeynayaa waa dhamaatay waayihii la dhihi jiray qofka intuu dadka ku durduriyo ee laga sabro faraha laga qaado naga daayo waa oday naga daayo saasiyan dhicin naga daa ma dhacayso abeesada waxa la yiri maxaa ku garbatay waxay tiri sidii aan meel ciriiriya hadba risq ugu raadinayay waan isugu xoqayay waan garbabeelay reer dal udug waa ay garbabeeleen maahan wax ilaahay ku xukumay inay gaajoodaan ilaah subhanahu wa ta'ala wuxuu dunida ku masruufaa dad ka tiro badan 8 bilyan oo qof suuragal maaha 3 milyan oo dal udug ku nool in guryahooda ay gaajo la fadhiyaan suuragal maaha laakiin systemkii waa gaajo ka dhigay dayuurad baan maanta xamar ka soo raacay walow xamar magaalo madaxdayadii ay tahay horaa waxaan u maqlay nin siyaasi ah oo meel madala ka yiri xamar Soomaaliya maaha Soomaaliyana xamar maaha waxaan leeyahay xamar waa Soomaaliya Soomaaliyana waa xamar haddii hagaagi weydo wax loo hagaagaya ma jiraan hagaajinta xamarna Soomaaliya oo dhan baa laga rabaa ay reer dal udug kow ka yihiin dada kan cunsuriyad laguma aqoon aqli xumi lagu danaysto waxba arrinka ku fogaan maayo laakiin halkan waxaan ka sheegayaa inaan musharaxiin badanna waa iga horeeyeen kuwa kalena waa soo socdaan dastuurkaana ogol qof kasta oo reer daluduga inuu issharaxo qof kasta oo uu galo han oo dalkan waxbaad ka qaban kartaa is yiraahdo xaq uu leeyahay 66 ka xildhibaan baana cod kale sidaa darteed anoo ka faa'iideysanayo fursadan waxaan halkan dhambaal u marinayaa reer daludug say u dhan yihiin dhambaalkaasi waxaan ku soo koobayaa heesawleedkii geeljirtayadu ay geela ugu heesi jireen markay waraabsanayaan heestaasi waxay ahayd ragga qaar baa ku qisaasana qolmanaanshiya qadoodiha filan reer daludugow ragga qaar baa ku qisaasana qolmanaanshiya qadoodiha filan dhambaal kale waxaan u dirayaa baarlamaanka daludug iyadana waxaan halay suga dhigayaa heestii heesawleedkii geeljirta waxaan leeyahay ninna dhuunu kugu dhaadhacay ninna dhalashu kugu dhabarjabay dhambaal kale waxaan u dirayaa dhalinyarada daludug iyadana heesawleed weeye waxaan leeyahay waa tanoo timi waana tiini waana tolmo waana tuban tahay dhambaal kale waxaan u dirayaa hoggaanka daludug iyadana heesawleedkii oranaysay weeye han lagu qabay haruub loo tolay oon lagaa helin yaa lagu hori dhambaal kale waxaan u dirayaa Soomaali weyn iyadana waxaan leeyahay xasadkeen badan xabiibkeen jaban allow xarigiyo xoogga noo adkay waa salaamantii